daawadayaal waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa waraysi kooban oo aan la yeelanayno halgamaa Faarax Dheere oo si toos ah uga warbixin doona halgamadii uu qaybta ka ahaa iyo sidoo kale ururka gobonimada Soomaaliyeed ee ONLF oo uu nolol ku soo gaaray. waxaan idin kala dhaxbaxayaa halgamee Faarax Dheere oo su'aalo arrimahaasi la xiriira weydiiyay isla markaana warbixin kooban naga siin doona halgamadii uu soo galay iyo taariikhdii iyo sooyaalkii uu soo joogay dhageysi haboon. shaafici waxa weeye magacaygu Faarax Sheekh Cumar Duud Hurre oo ku magac dheer Faarax Dheere aan ku dhashay degmada Fiiqeed. waxaan ku dhameeyay quraanka kariimka magaalada Fiiq baan ku dhameeyay halkan kale waxaan ka bilaabay magaalada Fiiq anigoo yar oo 16 jir waxaan ku beeray jabhadii geeshka 1964 taasi hogaaminayeen Allah u naxariistay markal daahir iyo waasaan xadiis iyo shacbi suuf reer kamid ahaayeen waxaan la galay ciidamada gumaysiga dagaalo badan aan ku naafaynay waxaan ka hawlgalayay Galnogeed magaalada Fiiq gaaladii fadhiday waxaan far waaweyn ugu dhignay 10 lama ilaa waanka ay taariikhdu xustay haddaba halgankaasi markuu yaraha daciifay waxaa duurkii ku hadhay ganuug la odhan jiray oo Sheekh Cumar Duud iyo Sheekh Cabdiraxmaan Yuusuf Maqani ay hogaaminayeen anuguna aan ka mid ahaa ayaa dagaalo laba ilaa waana ayaa la galay dagaalada la galay waxaa dagaalkii u horreeyey wuxuu ahaa meeshii la odhan jiray dhagaxle oo cali qodhobe la odhan jiray uu ku shahiiday u horreeyey kabacdina degmooyin badan baan maaragtay oo gobolka Nogeeda ayaan ka hawlgalay isagoo ururka Galnoog ay gumaysigu uu aad maaragtay u soo daciifsan yahay anaguna hawlgal ballaaran aan ku jirno ururka Galnoog dowladda Soomaaliyeed halgankii aanu wadnay dowladda Soomaaliyeed dadka yimid baa annagii naga taakroonay oo burburiyey xabad nolomaan imanin siyaasadda yeelanay kadibna waxaan bilownay jabadii xoreynta Soomaali galbeed dagaalkii u horreeyey ciidanka Axmed Gurey oo halgama Yuusuf Maxamed Suwaal oo maaragtay hogaaminayo waxaanu cadowgana la galay dagaalo adag oo taariikhdu xustay hal baan ka soo noqonay Fiiq 17 maalmoodaan 77kii ayaan garaacay ani iyo Maxamed Cumar Tubo ciidan hogaaminayo oo aan ka mid ahaa marka 17 maalmood baan garaacay waan ka guulaysanay markii aan guul ballaaran aan soo hiinay dalkina uu xoroobay ilaa herge inta ka hooseysa macal jigjiga waxaan dib uga baxnay markii ciidamo ajnabi dalkii ay soo galeen kor iyo hoosba markaasaan dib uga baxnay halgankaagii saasuu ku dhammaaday dhaawacyo badan baan galay ilaa 4 jeer bay xabadii ugu dhacday gumaysigii ugu dhuftay marka taana ammaanba kuma lihi oo dee wixii waajib ku ah ammaan kuma laha markii ay ololka waddanka soo gashay qayb baan 1991 waxaan shacabka Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay midoobaan inay gacmaha isqabsadaan horta waxaan codsanayaa dhibaatada in uu dadku u samro oo la quusanin naxariistay balqama quusto xornimadu madax bannaanidu waxaa weeye waa naxariis sida roobka oo kale ilaahay waxaan baryayaa dad inuu ilaahay uu gumaysiga inaga saaro in badanna waan ku soo dadaalay dhallinyaro ulooyidow maamulow kuwa jabhadoohu waxaan idinku codsanayaa inay midoobaan qalbigiin isku noqdo wada tashataan taasaan ugu baaqaya gama shaafici waa mahadsantahay dadaalka badan waddan halkaa ma siiyo